السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنيقو أول شيء حفصة موسنوح AKA فاطمة علي AKA جن بقر. aad iyo aad baan u salaamaya mujtamaca Soomaaliyeed adduunka meel kasta oo ay ka joogaan. waxaan idin leeyahay waqtiga aad joogtaan baa idin wacnaado, maalinada aad joogtaan, habeenada aad joogtaan, galabada aad joogtaan, situation kasta oo aad ku sugan tihiin ha idin wacnaato. insha Allah haddii Ilaahay idmo sidaan idin sheegay halkan waxaan isugu iman doonaa YouTube channelkayga Xafsa Media برنامج إن شاء الله ونكسنا إذن لو ذاك دونا وحيدين لو ذاك دونا شيكوين وروح بدن وحيدين لو ذاك دونا شيكوين سادة كوس أدونك فرحة إيو ساد إيو أدونك واساس وفرحة ما اليوم وحواي يوم العصر واليوم البصل معلنا وملب معلنا وبصل مركا إن شاء الله حيدين لا يهاي دي لها إدمو سبسكرايبك لايكتا كومنتيجا فكرتين وحي إذن لا تهاي وحي أدربتين وسو كرسين انت waxaan idin leeyahay waan idin ka rajeynaya insha Allah waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa gabdhaha Soomaaliyeed YouTuberada ah ku soo bandhiga waxyaabaha interesting ka ah waxyaabaha motivation ka ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku motivate gareeyaan haday noqon lahayd guri la nadiifinayo, haday noqon lahayd cunto la karinayo, haday noqon lahayd business la promote gareeynayo, haday noqon lahayd mid jimc sameynayso, haday noqon lahayd mid ooys adu wax walba oo aan meelaha ku soo bandhigno waad iyo aad baan idinku maaragtay boorinaya inaan hore u socotaan because waxaan arkaa hadda horumar badan. aniga YouTube kan waxaan create gareeyay sanad ka hor aniga marka iska maaragtay waxaan iska ah qof iska hawlo badan oo socodkaygana waayadaan iska badnaa safaradeedii waxa badnaa marka waqti aan fiidiyoyaal iyo wax ku soo galiya maanan helin. waxaan idin leeyahay insha Allah hadda wixii ka dambeeya no more Facebook live. hadda interest garaysid programmadayda almiidaan waasac waxa ka heli doontaa bartayda YouTube kan ku leeyahay Xafsa Media. hadda waxaan u joogaa dalxiis vacation wadanka Brazil magaalada caasimadda Brasilia. wadanka Brazil waa wadan aad u qurux badan, waa wadan ay ku nool yihiin dad aad u wanaagsan oo aan cunsuriyiin ahayn oo dadka jecel. waa markaygii labaad oo aan imaado wadanka Brazil. markii hore waxaan imi magaalo la dhaho Rio de Janeiro, waxaan kaloo sii tagay gobol la dhaho Francisco Patrão oo marka odagay ka shaqeynayay. hadda laakiin waxaan imi caasimadda Brasilia oo aan aad uga helay. Rio de Janeiro waa meel qurux badan laakiin Francisco Patrão iyo markii aan isku compare garay halkan aad bay uga fiican tahay caasimadii dhanba. waa qof Muqdisho tagay iyo qof gobol tagay. marka almuhim waxaan insha Allah aan hadda shalay idin la soo wadaagay halkan waxa joogta rabaa insha Allah inaan brief idin ka siiyo. waxa jooga Soomaalidaasna waxay u badan yihiin rag. hadda soo far wax dumar ma joogaan. dhowr gabdhood soo maray way ka gudbeen inta badan. ragga naftirkooda way ka gudbaan oo ilaa meelahaas ay u tahriibaan Canada iyo meelahaas. aniga odaygayga meeshan wuxuu degan yahay muddo 8 sano ah. dadka Soomaalida qof kaliya Soomaali ah ee Brazil dadka ku soo dhaweeyo ahaa oo maaragtay dadka dibadejinta oo turjumay oo aad u caawinay markii halkan loogu yimi maadaama uu soo reeyay shaqadii iyo wixii uu fahmay. hadda almost magaalada uu degan yahay halkan waxay u jirtaa 6 saac. halkan anaga waqtigeeda ku qaadanayna hadii Ilaahay idmo maadaama caasimadda ay tahay magaalada quruxda badan. anagana vacation isagana uu bil fasax leeyahay anigana aan bil fasax soo qaatay. marka laakiin magaalada 6 saac u jirtaa. magaalada 6 saac u jirta waxa ku nool wiilal dhalinyaro ah oo isaga ugu wada yimi oo ilaa 7-6 gaaraya oo meesha ka shaqeeya. halkan waxa jooga ilaa wiilal gaaraya 5-6 ayaguna oo ka shaqeeya. kulli isku hal company bay ka shaqeeyaan magaalooyin kala duwan. qofkii ugu horeeyay company-ga ka shaqeeyana odagaygu ahaa ما شاء الله تبارك الله. وآدي آد سومالده وقعن قبتي كمبنياشا وحا
halkan laga shaqeeya kambaniyaal carab niman ah ay ka yihiin wakiilo kambaniyaal maxaa la carabta aad bay u joogtaa laakiin Soomaali kuma arkin magaalo aan tagay hadda ka hor markaan imi 2015kii markaan 2016kii markaan May 2015kii markaa imi magaalo aan tagay masaajid ku yaala hadda insha Allah waxa idin la wadaagi doonaa masaajidka hadda maanta hadda u socdaa inaan masaajidka aado masaajid aad weyn magaaladan ku yaalo maqaaxiyo carab baa ku yaalo mujtamac muslimiin oo carab ah joogo laakiin Soomaalida waa wiilasha dhalinyarada oo soolanaha ah oo meeshan ama Afrika ka yimaadaan ama Aasiya ka yimaadaan yimi sharciyo laga siiyay qaybna baasaboor haday wateen kala ku jooga insha Allah wiilasha dhalinyarada ana waxa waaye haday ii suurta gasho shalay wiil baa arkayseen oo ninkan odayga ma sha Allah oo soo xigeenka odayga waaye aad dadka u soo aniga hadda aad ii soo dhaweeyay habeenkii dhawaada imaanay 3 in the morning imaaday wallahi waxaan ku dhaawar 3 in the morning wiilkaas oo lugan 3 in the morning airportka iyagoo jooga oo ma sha Allah waxyo qurux badan soo dhaweyn micnaa wiilkaas hadda wuxuu magaalada markii loo fiirsho dadka dhalinyarada qof walba midda kale oo raba inaan Soomaalida la wadaago oo xasuusiyo waxay tahay Soomaaliya horta waxa ogtiin wadankeena qabiil baa inaga keenay wadankeena qabiil baa inaga keenay Soomaali reer qurax reer qansax macalkuwi wada dhashaa iskala saaray daaroodkii waa iskala saaray saaqi waa iskala saaray hawiye waa iskala saaray raxan weyn baa iskala saaraysa dadkii oo dhan waa iskala saarayaan laakiin qurbaha markii la yimaado Brazil markaa imi dhalinyaradaas hadda magaaladaas odayga ka shaqeeya dhalinyarada joogto waa dhalinyaro kala qabiil ah hadana hal guri bay degan yihiin laba guri waa iska warhayaan wax meel bay wax ku wada cunaan معناها وحوا كيبوكا كيبا هذا كيدب كودع واسكرب تاعيهين it's okay marka waxaan rabaa insha Allah wax badan oo Brazil waa idin la wadaagi doonaa ilaahay idinkiis waxaan idin la wadaagi doonaa waxyaabaha interesting ah meelaha qurquruxda badan wax walba insha Allah just I don't know videogan waa for information I don't know kollayba de qofka haduu YouTuber yahay ama uu yahay qof public figure ah meel walba iyo wuxuu ku arkay inuu dadka la wadaaga fiican meeshan waxa dalxiiskii aad ugu fiican tahay aan leeyahay dadka Soomaalida ah ee qurbaha jooga waxaad arkaysaa dadka inta badan waxa arkaysaa dharka la sitaa si waa loo wada mashquulsan yahay dadku si way u wada maaragtay problemsan yihiin qofkii shalay aad isku wanaagsanideen oo shalay xiixiya ma hayden afka ku kala goosanaysid bari waxa arkaysaa soo hawada kaala dagaalay oo ma aragtay wax aad ka halaysan habeen buu saxdo ku soo riyooda aan garanay dhibaatooyinka qurbaha yaalayna kamid tahay insha Allah waxaan ku soo qaadan doonaa programkayga aan idin sheegay inuu soo socdo insha Allah qoyskii qurbaha marka waxaan idin leeyahay Soomaaliya wadanka waa laga baxaa dalxiis baa la tagaa sanadkii markaa shaqaysid hadaad 2 asbuuc ama 1 asbuuc ama 3 asbuuc hadba sidii ay ku suurta gashay aad wadanka ka baxdo aad soo qaato vacation is good for you caafimaadkaaga u fiican tahay refreshment hadda anay sanadkan 2019 ka waxa ii ahayd sanad fasax 3 bilood waa idinka ogaa Soomaaliya soo joogay hadda markaan soo noqday hataa aan wali shaqo ku noqon hadana halkan aan soo aaday insha Allah hadda waxa rabaa ilaahay inay markaan laabto inta sanad ka dhimanaa sadargeedii aan u shaqeeyo because refreshment fiican soo qaatay marka waxaan idin leeyahay insha Allah stay tuned program qurux badan idin soo wada program aad iyo aad u qurux badan idin soo wada hadii ilaahay idmo waxaan idin la wadaagi doonaa sheekooyinka dadku ila wadaageen ama waxyaabihi aan u soo joogay insha Allah waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasto adduunka aad ka joogtaan waa idin jecelahay meel kasto adduunka aad ka joogtaan waxa la yiri east west home is best wax Soomaali ku dhaama ma helaysid dadkaagi waaye meel xun kaaga ma tagay qof Soomaaliya end of the day inaga isku dad ah waxaan idin leeyahay insha Allah qabiilka iskala saarsaarka macna ma sameeynan end of the day xafaalaha way iska jirtaa oo waxa la yiri xafaala alla xalaaleeyaa la yiri xanta dariska saxaarana dadku marmar waa la xafaaleyn kara marmar wax opinionkaaga waa ka hadli kartaa laakiin end of the day qof qabiilha ku jeclaan qofna qabiilha ku nicin qofna ha ku soo dhawaan qofna ha ku fogeyn habeen dhaweed hadda live Facebook aan soo galay arinta doola ka hadlaya waxa la gabadha afaar qabiilaysato marmarka qaybtood qofku inuu wax falanqeeyo isla bad ya hada wax falanqeysid sidee kula tahay wax dhiba ma lahan laakiin waxa daran qabiilka inuu sidii aad quraankii oo kale ugu dhaqantido aad qofku fogeyso qofna anu qabiil qofna kuma jecli
waxaa jira dad aan ila qabiil ahayn oo aan ka jeclahay walaalahay oon keliyahayga iyo baarkayga siin lahaa baa jira marka waxaan idin leeyahay Soomaaliya meel kasta oo joogtaan waqtigaa joogtaan baa idin wacnaado waa Princess Jini Boqor Xafsa Muuse Nuux oo idinka soo salaamaysa caasimadda Brazil Brasilia